kulanti wacan oo wanaagsan daawaday halkan waa madasha waxaynu ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo dhacdooyinka cusub qodobada aad daawan doontaana waxa qayb ka noqonaya barakac ka bilowday magaalada Baydhabo wali waxa halkaasi ka jira dhaqaaqyada isdiidan ee ciidan qasaaraha ka dhashay dagaalkii shalay ka dhacay iyo wararkii ugu dambeeyay ee guud ahaan ku gadaaman xiisada Baydhabo ayaan daawadayaal idin soo gudbin doonaa hadii Rabbi uu ka raali noqdo qodobada kalena waxa qayb ka noqonaya ra'iisul wasaareyaal horay u soo maray xukuumadda Soomaaliya war ay ka soo saareen dagaalka ka soconaya Baydhabo baaq degdeg ah ay u direen xubnaha siyaasiyiinta ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya geesta kalena diyaaradaha qaybta ka ah howlgallada ka dhanka ah shabaab ayaa duqeyn waxa ay ku dileen ku dhawaad 70 xubnood oo qayb ka ah dagaalyahanada kooxda waxaynu idin soo gudbin doonaa duqeyntaas goobta ay ka dhacday haduu Rabbi uu ka raali noqdo sidaas oo kale qodobada warkayaga aad ku daawan doontaan anaan idin soo gudbin doonaa waxa qayb ka noqonaya taliyaha ciidanka lugta xooga dalka waxa uu xaqiijiyay in shabaab lagala wareegay deegaano dhowr ah oo cusub oo markaasi dhacay Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan tuulooyin ay shabaab kaga sugnaayeen ayaan daawadayaal idin soo gudbin doonaa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo door dhaxaadnimo ah ka qaatay xiisada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uuna ku baaqay in miiska wada hadalka la isugu yimaado oo xiisada la dejiyo qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordhay inta warkayaga ayna ku guda jirnaa ayaan si wada jir ah u daawan doonaa daawadayaal aan ku xasuusiyo haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe noo saarto gambaleelka aad furto si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada iyo sidaas oo kale barnaamijyaadka halkan aan idinku soo gudbino qaybaha hoose ee commentiga noogu reeb oraahdaada kaaga aadan wararkii warbixinadan ku soo gudbinayno muuqaaladayna sii share garay oo asxaabtaada la wadaag mahadsanid daawaday ugu horeyn warkayaga aynu ku bilownay xaaladda magaalada Baydhabo saaka waa mid degan marka loo eego shalay oo halkaasi uu dagaal ku dhaxmaray xubnaha la magac baxay badbaadada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidaas oo kale ciidamo taabacsan madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftagreen dagaalka ayaa salka ku haya kadib markii xubnaha siyaasiyiinta ah ee ka aragti duwan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay sheegeen inay ka soo horjeedaan muddo kororsinka uu sameystay Cabdicasiis Laftagreen intaasi kadib magaalada Baydhabo waxa ka soo baxay xubno kacdoon ah oo la magac baxay badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ayna sheegeen inay ka soo horjeedaan aragtida Cabdicasiis Xasan Laftagreen ee ku aadan in markaasi uu muddo kororsin sameeyo waxay la wareegeen qaar ka mid ah xaafado dhowr ah oo dhaca magaalada Baydhabo ee xarun ku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada taabacsan Laftagreen ayaa weerar ku qaaday dagaal culus oo halkaasi shalay ka dhacay kadib maanta xaaladdu waa mid degan hase ahaatee xaafadaha qaar oo ka tirsan Baydhabo waxa laga soo tabinayaa xilligaani inuu ka soconayo barakac dadka waxay ku sheegayaan in markaasi aad kaga walaacsan yihiin xaaladda culus ee xilligaani ka taagan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidaas oo kale waxa ay xuseen in markaasi ay qabaan baqdin ku aadan in mar kale lagu dul dagaalamo sidii shalay oo kale dhacday dadka qaar waxa ay gacmaha ku wateen agabka fudfudud ee guryahooda yaalo waxa ayna sheegeen in markaasi ay isaga barakaceen xaafadahooda oo ka agdhawaa furumihii shalay lagu dagaalamay waxay sidaas oo kale xuseen qaarkood in markaasi baqdin ay ka qabaan maadaama ciidamadu wali ay yihiin kuwa is hor fadhiya in mar kale lagu dagaalamo awgeed ay kaga baxeen banaanka magaalada Baydhabo kuwa qaar waxa ay u qaxeen xaafadaha ay degan yihiin xaafado ka agdhow iyaga oo sheegay in markaasi ay maciin bideen in markaasi xabadii shalay oo kale in aysan markaasi u dul qaadan karin Cabdicasiis Xasan Laftagreen waxa loogu baaqay in miiska wada hadalka uu yimaado isaga iyo xubnaha kale ee siyaasiyiinta ah ee ka aragti duwan dadkii ka hadlay arinta Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa qayb ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbadiisii shalay Jimcada ah kaga hadlay xiisada ka taagan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay midii ka dhacday Baydhabo taas oo markaasi sababtay in waxyeelo ay soo gaarto dad rayid ah xilligaana aan la joogin xilligii markaasi hubka la isku qaadan lahaa waxa uu xusay in markaasi hubka ciidanka iyo kan dawladda hal dhinac loo jeediyo
geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku baaqay isla markaasna ugu baaqay xubnaha siyaasiyiinta ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya inay isugu yimaadaan miiska wada hadalka isla markaasna qoriga la dhigo tabashadana wada hadal iyo wada xaajood markaasi lagu dhameeyo. madaxweyne Xasan waxa uu xusay in dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay soo arkeen dhibaatada qoriga uu leeyahay isaga oo sheegay in ay ka dhalatay mid gacantooda ay markaasi ku raadsadeen iyo sidaas oo kale mid la dul keenay. madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu xusay in mar kale dadka reer Koonfur Galbeed aysan qaadi karin dhacdooyinkii horay ay u soo arkeen oo kale. waxa uuna ku baaqay in miiska wada hadalka iyo wada xaajoodka la isugu yimaado. markana aynu eegno shabaab waxaa laga dilay ku dhawaad 70 xubnood oo markaasi ka tirsanaa dagaalyahanadooda kadib duqeyn dhanka cirka ah ee lagu qaaday. taliyaha ciidanka dhulka ee markaasi xooga General Maxamed Tahliil Bixi faahfaahin waxa uu ka bixiyay howlgal qorsheysan oo lagu laayay kooxda shabaabkaas oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Ceel Bacad oo hoostaga degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. taliyaha xilli wareysi gaar ah uu siinayay warbaahinta waxa uu sheegay in kooxda saacadihii ugu dambeeyay ay isaga baxeen deegaanka Ceel Bacad isla markaasna looga daba tagay dhul hawd ah halkaas oo lagu laayay sida uu hadalka u dhigay. General Bixi waxa uu xaqiijiyay in howlgalkaasi lagu dilay qiyaastii ugu yaraan 67 dagaalyahane oo ka tirsan Al-Shabaab wuxuuna sheegay in howlgalku uu weli socdo qasaarana Al-Shabaab la gaarsiiyay. waxa uu sidaas oo kale xusay in markaas ciidanka ay ku raad joogaan kooxihii kale. waxa uu yiri dagaal aad u xoog badan ayaa halkaasi ka dhacay. dagaalkaas hadda waa qaboobay oo xaqiiqdii ma socdo. ciidanka ayaa markaasi sifeyntooda sii wado waxayna xaqiijiyeen inay dul istaageen geerida ku dhawaad 67 shabaab ah. dhaawacyo intaasi kasii badan meydadkooda iyo qoryihii ayaan hadda isku aruurinaynaa ayuu yiri General Bixi. waxa uu xusay in ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay wadaan howlgallo qorsheysan kuwaas oo markaasi ay ku bartilmaameedsanayaan shabaab. waxa uu sidaas oo kale xusay in markaasi gobolka Shabeellada Dhexe degmadii ugu dambeysay tuulooyin dhowr ah ee hoostaga in markaasi shabaab ay ku sugan yihiin maadaama horay Ruunirgood oo ahayd degmadii ugu dambeysay ay ka baxday gacanta shabaab xilligaana ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin. Bixi waxa uu xusay in markaasi qorshaha xiga ee xilligaani ay tahay in gudaha ay u galaan galgaduud bartamaha Soomaaliya taas oo uu ku sheegay in markaasi ciidanka ay ka go'an tahay in howlgalka dagaalka shabaabka ka dhanka ah ay markaasi sii wadaan. markana aynu eegno 3 ra'iisul wasaare oo horay u soo martay xukuumadda waxa ay ka hadleen xiisada ka taagan Baydhabo iyo sidaas oo kale madaxweynihii ku meel gaarka ahaa Shariif Sheekh Axmed si wada jir ah ayay baaq ugu direen xubnaha siyaasiyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaas oo ku aadan in xiisada xilligaani Baydhabo ka taagan la xalliyo. madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed iyo 3 ra'iisul wasaare oo hore Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, Xasan Cali Khayre iyo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee ka taagan Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxa ay ku baaqeen in wada hadal iyo wada xaajood markaasi xaaladda lagu dhameeyo. bayaan ay si wada jir ah u soo saareen 4 siyaasi waxay ku baaqeen in laga shaqeeyo xasiloonida iyaga oo ka dalbaday dhinacyada isku haya Koonfur Galbeed inay wax waliba markaasi ku dhameeyaan miiska wada hadalka si xal looga gaaro. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan siyaasiyiinta iyo maamulka inay ka wada hadlaan markaasi iyo xal fursad ah ay siiyaan kuna qancaan xal u helidda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu yiri si markaasi loo hirgeliyo wada xaajood. sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Cabdiweli Gaas, Cumar Cabdirashiid iyo Xasan Cali Khayre ayaa ka dalbaday dowladda Soomaaliya inay qaadato doorkeeda ku aadan xaaladda Koonfur Galbeed. waxaan dowladda federaalka ka rajaynaynaa inay qaadato kaalinteeda doorashooyinka labada heer ee markaasi doortaan muddo xileedka sharciga ah si dalka loo badbaadiyo ayaa lagu yiri. waxayna ku baaqeen in xaaladda la dejiyo. Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka soo yeeraysa qayladaan ku aadan xiisada culus ee halkaasi ku taagan. halkan waa madasha daawada guud ahaan warkii aad kala socoto anaga inta waad ku mahadsantahay la socodka iyo la jaanqaadka warkayaga.
haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay subscribe noo saar gambareelka furo si mar weliba aad u hesho wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka halkan aan idinkugu soo gudbino daawada halkan waa madasha ee mahadsanid mar kale.